السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In badan markaynu la doodayno dadkan ATS ka sheegta waxaynu ula doodnaa hab caqliyeysan oo aan wax sababeynayno waxna cadaynayno waxna aynu cadayn tirano oo ah waxa ay la soo shirtagayaan. Haddaba waxa la ogaaday in ma aragtay ayna ahayn uun taasi mid kaligeed anfacda balse mararka qaar dadkan aynu la xiwaartamayni ay yihiin kuwa maskax ahaan u xanuunsanaya. Marka dacaydiga maaha waa idin tusi doonaa. waxaan arrintan sheegayay ma aha aniga laakiin waa cilmiyada nafsiga ah markii diraasooyin badan lagu sameeyey bulshada noocana. ninka la yidhahdo Paul Fitzbook waxaa la yidhahdo wuxuu qoray book la yidhahdo Faith of the Faithless, iimaanka iimaan laawaha. Wuxuu diraasayey nolosha atheistiska caanka iyo philosopherska ahaa sida Thomas Hobbes, Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, kuwaasoo dhan buu noloshoodii diraasayey, John Paul Sartre, kuwaasoo dhan. Markuu diraasayey wuxuu ogaaday in badan inay ka imaadaan guryo burbursan oo single mothers iyo aabbo la'aan ama aabbo abusive ah oo dhiba oo kadeeday oo maaragtay soo garaaci jiray. taasi oo maaragtay nafsi ahaan u saamaysay kuna kaliftay inuu go'aankan qaato. Sidoo kale ninka la yidhaahdo Paul Johnson wuxuu qoray book Intellectuals uu u bixiyay The Intellectuals. Bookgaas wuxuu ka sheekeynayaa asbaabo kale oo aan ahayn shubahaad oo iyaguna qofka ku riixay inuu atheist noqdo. Asbaabaha oo isagu soo bandhigay waxaa ka mid ah pleasure seeking behavior, qofku inuu shahwo raac yahay. So wuxuu dadkani uu ogaaday oo dadkan uu diraaseeyey xataa Bertrand Russell baa ka mid ah iyo maaragtay Karl Marx, ninkii Marxismka aasaasay. Dadkan wuxuu ku leeyahay waxay qaar badani u gaaloobaan iyaga oo shahwo raaca, iyagoo ka cararaya culayskii awaamirta diinta ay xakameynaya shahawaadkii nafsiga. So waxa ay yihiin in badan alcoholics and sex addicts, dad jinsi addicti ku ah oo sidoo kalena alcoholics oo alcoholka aad ula qabatiman. taa waxaa dheer diraasad 2016 ay samaysay American Psychological Association. laba diraasad dabcan sameeyay 2016. labada diraasadii koowaad 54% waxay soo saartay in dadkani ay sidoo kale lala associate garo ama ay la darasto dadkan categorigan atheist-ka ah inay la darasto xanuunada ay ka mid yihiin depressionka iyo dareemo inuu qofku uu dareemo hopelessness iyo inuu yacni rajo beel iyo quus iyo maaragtay isku buuq. sidoo kale diraasadii labaad waxay sheegtay 72% bay gaadhsiisay. labada daraasabana waxay waafaqeen daraasad 2011 la sameeyey oo sheegtay 44% ama 44%. isku soo duuduubo dadkani in badan uma baahna dood, waxay u baahan yihiin cilaaj nafsi ah in si psychological loo daweeyo.